fanaanada caanka ee Soomaaliyeed ee lagu magacaabo Tufaax Darajo ayaa xagga Rabbi waxaa laga tusay mucjiso rabbaaniya kadib markii fanaanadaasi ay ku noqotay fanka oo ay muddo hore ka fadhiisatay. Fanaanada ayaa markii ay ku soo laabatay fanka oo ay hore u shaacisay inay ka fadhiisatay waxaa la tusay sida ay sheegtay mucjiso rabbaaniya, mucjisadaas oo ay sharaxday isla markaasna ay ku sheegtay inay aragto waxyaabo aanay hore u arki jirin muddadii ay ku soo noqotay fanka. fanaanadan oo soo duubtay muuqaal kooban ayaa waxay sheegtay in la tusay mucjiso rabbaaniya isla markaasna la horkeeno iyadoo geeri ay la soo deristay ama ay dhimanayso xilliyada qaar. fanaanadan oo haddaba dhacdooyinkii la tusay iyo waxyaabihii ay aragtay ee mucjisadaasi ka sheekaysay ayaa waxay tiri sida markaa maxaa igu dhacday cabsi baan dareemaa saan u soconayo meelaha u soconayo baa shoogi qabsanaya oo waxaan dareemayaa inaan halkaanaa taagantaad ku dhimanaysaa baa laygu yidhaahdaa cidda ila hadlaysana ma garanayo. habeenada ka mida waxaa dhacday markaa inan aanu saaxiib nahay oo Aamina Malyoon la yidhaaho habeenna aan aad u fogeyn bay ahayd ayaabaan gurigeeda ku soo caweeyey waan ka imid inantii markaan inantii ka imid gurigeyga baan soo aaday markaa ilaa abaara 8 barkii habeenimo bay ahayd 9kii baan gurigeyga soo gaadhay waan ka yara durugsanay wado anoo maraya markaa taago uu yahay gurigeygu taagadii markaa soo koray baa laygu yidhi halkaa ha dhaafin iska joog bartaasaad ku dhimanaysaa. ilmana way iga timi jirhkana jiridhaca igu jabtay sidii qof yacni dee wax lagu jarjarayo kalaa noqday. waxaa taa inaan ashahaato waan kari waayey markaa waan ashahaadan kari waayey runtii markaa cunjuf walaalkay soo dhowow waan gariiday si baan noqday telefoonkii baan la soo bixi kari waayey markaa kursi ii dhowaa oo meel kursi agtayda ahaa xaafad igu xigta oo kale oo taagada noo dhaxaysay baan fadhiistay markaan kursiga ku fadhiistay markaa xoogaa waxaan wadnaha laysii yara daayay marka hore wadnaha aad ii xanuunayay bas markaa Aamina wacay Aamina telefoonkii way iga qaban weyday taxi baan wacday taxigii baan qaatay inantii baan dib ugu noqday waayo waxaan seedaad gurigii gasho waad ku dhex dhimanaysaa deedna cid kuu miciina ama cid kula joogtaa ma jirto xaafadii waa cidla bas markaa inantii baan dib ugu noqday iyadoon ooyayo taxigii baan ka soo degay carruurteeda bannaanka taagnayd markaa waan hadli kari waaya habar hooyan u baahana ku way soo gashay garabkii qabatay gudaha galay markaan guriyihii galay markaa waxaan ku dhahay Aamina waan dhimanayaa waxaa la guri markaa dhimanaysaa markaa waxaan rabaa inaad maxaa la yidhaahdaa waalidkay iyo hooyada iyo reerkaygii inaad wargelisaan doonayaa dadna waxay ku tiri shadaanka iska naar saaxiib acuudu billayso salaad tuka waan awoodi waayay xitaa inaan salaadii tukado acuudu billaysay ku tiri walaal isdeji habeenkii oo dhan adinku waxba yaan idiin sheegin quraan baan shitay quraankii baan isku akhriyay quraan baan shitay waagi baa bariyay alxamdulillah dhakhtarkaan u tagay waxa la yiri ma aragno caafimaadkaagu waa 100% wax ku meel ku xanuunaysa iyo wax kaasiya ma garanayo sidii waan iska tukanay salaadeedii waan tukaday caadi baan ahaa waxay ka soo waaday bil kadib haddana sidii si la qabtay waan ka dhaga adaygay dhowr qof baan weydiiyay oo sheegay waxa la yiri waa wax caadi ah marka jirku daalan yahay ee aad daalan tahay cali hanad soo dhawow inaad araad baan ku salaamayaa baldeeq sidoo kale inaad soo dhawow dhowr qof markaan weydiiyay aan ku yiri saasaan dareemaa asxaabteedii ka mid ahaa waxa la igu yiri way dhacdaa jirkaaga daalan hurdo badan markaa jirku cabsi buu dareemayaa seexo waan seexdaa habeenkii markaan seexanayo markaa aad kursidaas ka sii dhageystaa albaqra iskariisa waan seexdaa cid kale lama sheer garay markaa wadaad iyo xubtoona ma sheegin maalmo ka mid ah waxaa dhacday inan aan saaxiib nahay oo joogta maxaa la yidhaahdaa jarmalka joogtaan u sheegay aan kuri nimco saasa igu dhacda waana igu soo badanaysaa baan kuri dadna waxay igu tiri hadhayalsan saaxiib sheekh u sheeg waa inaad sheekh u sheegto way ka soo waaday haddana inan aad iyo aad iyaduna maasha allah diinta ku xeel dheer oo wadaada oo joogta Canada ayaan u sheegay iyadana warsan la yidhaah qaralaha siiyo waan u sheegay xigta walaal sheekh halkan la joogana waan u sheegayaa wax kalena ma tufaaxay ilaah baa ku jecel toobadna keen waxaana ku jirtana iska daawadaadana kaashabay igu tiri ilaahay ma taqaanaa u soo noqo dee wax kale awalba ma sameynayno xun dee waa sameynaysaa isma salaadeedana waan tukanay laakiin dee kulli heesuu ma dambi yara waana macsi hadalka yaan ku badinin waxaa dhacday haddana asxaabta badanaa guriga saaxiibadii baan joogaa markay inantu ii soo gasho waan ka baqaa waan sasaa sidii qof guriga cidlo oo kale jooga baan qaylinayaa samadan ka qaylinayaa isagu tiri nashadaanka iska naar maxaad la sasaysaa habeen badhna maaha waa xilli caadi fiid kadib waxaa dhacday waan soo tagay gurigaygaan imi qaybisada dabka maxaa la yidhaahdaa aan gashado habeenkii marka seexdo mas bay noqotaa qaybisadii mas bay igu noqotay jaajarka anigu aan jaajarkan isticmaalayaana sidoo kale mas buu igu noqday dadna waa dad sida dadka ila hadlayaan way idilayaan inay idilaan bay isku dayaan sida dadka ila hadlayaan waan ka caawin cudbilaysa guriga dhan waa cidla ma hadli karayo marmarna inta la qabto cunaha la igu dhagaa meel madow la geliyaa saa inta la qabtaa la ciijiya
kadib waxaa dhacday sidii baan hablii haddana ugu sheegay sidii bay igu yidhaahdeen waa inaad shiikh u sheegtaa warkayaan idinku badnay shiikh baan u sheegay waxaan ku jimcihii baan shiikh la xidhay waxaan ku saasaa igu dhacda dhibaatadaasaan dareemayaa mana garanayo dee wax maxaad samaysaa maxaad dhibaataa macidbadka cidna kama xanaajiya waan ku yidhi waalidkayna raalli buu iga yahay ummadda ilaahayna way iga ammaan heshaa oo inta ugu badan waxaan siraa ummadda saaxiib baabaad la tahay oo cidna dhibaato uma geysto cidna saacaddan isma hayno marka muxuu camalkaagu yahay buu igu yidhi waxaan qabtay shaqadeeda iyo camalkaygaan u sheegay kadibna waxaan ku yidhi fanaanad baanahay hadalkiio kooban sheeg buu igu yidhi raadi wixaad yacni khaladaad samayso fanaan baanahay wuxuu igu yidhi ilaahbaa ifka kugu ciqaabayay waxbaana lagu tusayey wax aad wax ku wada qaadata ayaa lagu tusayey qofka ilaahay jecelay baana xumaanta ka soo qabtaa intan ka badanna waad arkaysaa haddaad ku sii jirto wax badan oo kalaad arkaysaa leanna waa runtiisa jidhku way gariiraa dhakhtar kasta wiiga waa marba wadnuhu xanuunaa jidhku intuu gariiro wadnuhu dhacaya marsan gariiraya markaasaan odhanaya dhiig bay igu kacsan dhiig ma ahan waxba waa layga waayaa hadda iyo dan wuxuu igu yidhi halka aad taagan tahay waa inaad kaga dhaqaaqdaa waxaanaad hayso qur-aanka ayaa kuu ah dawo qur-aanka ilaahay iyo jidka ilaahay ku toos maxaa la yidhaahdaa ilaahay u toobadkeen halkaana ku jooji waxa aad gacanta ku haysa halkaa ku jooji marka runtii waxaan door biday maadaama ilaahay jeceliyo aan ku faraxsanay alxamdulilah rabbilcaalamiin oo xumaanta layga qabanayo waxa lay tusayna aan ahayn wax yar oo dee aanan gama weliba markaan keligay hay igu badan tahay asxaabteyda markaan la joogo saaxiibadda gurigeeda joogo inta badan waan sasaa markay waan naxaa waan qayliyaa sasku wuu igu badan yahay runtii laakiin ma arko waxay igu darantay markaan keligay noqdo ayaa waxaan ii imanayaan dadkani ila hadlayana ma arko badanaa ma arkayo bishanna way igu soo badatay iminka bishan lagu jiro oo dhan way haysatay dhibaatadaasi marka alxamdulilah rabbilcaalamiin dee naftu meesha jirto ilaah baa garanaya oo dee haddii inta la ii sheego laygu yidhi haddaad dhimanaysa aan hadda dhinto oonan toobad keenin waa dhibaato marka waxaan rabay inaan idinla sheergareeyo in ilaahay toobadiisu way bannaan tahay aan sidaa ku toobad keeno maxaa la yidhaahdaa farahana aan ka qaado shaqada aan haye runtii kuma dhex jirin guurso walaalo wallay qabaa soo dhawow marka maxaa la yidhaahdaa waxaan doonayay halkaa inaan ku joojiyo runtii marka horena kumaan dhex jirin oo waxaan ahaa dadka ka aan saa ugu sii dhex jirin fanka inta wanaagsanna waan ka raaci jiray dadka wanaagsanna waan ku xidhnaa oo dee fanku hadba waa sidaada u dhaqanto marka waxaan doonaya inaanu mahad celiyo intii ila soo shaqayn jirtay ila soo shaqaysay intii aan ku jiray abwaaniintii garab qabatay fanaaniintii garab qabatay dadkii oo dhan inaanu mahad celiyo aniguna toobad ilaahay way bannaan tahay maanta oo maalintu tahay maantanan aan idinla hadlayo inaan gebi ahaanba iska joojiyey kana codsanayo walaalaha inaanay i dhegaysanin oo dhibaatadan igu sii badanin halkaa ay igu daayaan ilaahay ha u dambi dhaafo iyagana inuu ilaahayna ii dambi dhaafo oon saa ku daayo aanan layguna soo taagarayn layna dhegaysanin hadday awoodaan anigana ii soo ducaysaan inuu ilaahay saa igaga masaxo oo ilaahay uu khayr ka dhigo soor telefoon baa soo galay marka insha allah biidnillaah abwaaniintaydiina waan u mahadnaqayaa intii awoodaysaana inay heesahayga youtube-ka ka saaraan ee aan garanayo gelisay waan ka dalban doonaa insha allah waana la hadli doonaa intaan garanayo intii kale aanan garanayno hadday videogaygan arkaan ay ka saaraan idinkuna aad iigu ducaysaan toobadda inuu ilaahay maanta uu waafajiyey lay tusay ifka wax laygu tusay inuu ilaahay ila garab galo sidaana hadaayadiisa uu iigu wado insha allah biidnillah dhowr jeer waan isku dayay waanan idhi waan ka baxaya laakiin waxna maan dareemin waxna maan arkay hobbi buu isaga kay ahaa waan iska qaadi jiray heesaa waan iskaga dhex jiray laakiin maanta waxaan wax ku wax qaata baan arkay oo lay tusay insha allah go-aankaygu waa sidaa walaalahayga qaaliga ah intii la soo shaqaysana aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa dhammaantiinna cafis baad iga wada tihiin abwaaniintayda intaan telefoonadooda hayana waan la xidhiidhayaa hadda heesaha aan ka hayo xor bay u yihiin inta aanan hayn telefoonadooda hadday video way arkaan cidday rabaan bay siin karaan heesaha hadda diyaarka insha allah biidnillah inta anigu aan la ahay asxaabteen dee hayo telefoonkoogana waan wici doonaa walaalkay cabdirashiid calxamari walaalkay cabdirasaaq salebaangaas seer maxamuud cumar walaalkay haatuf ma iloobi karo say ii garab istaageen iyo dhammaanba reer oslo ciiro caydiid dhammaantood waxay siiyaan garab intii aan fanka ku jiray sidaan ahay iyo qofkaan ahay iyo sharaftayda iyo sumcaddeydana way la ilaalin jireen waan uga mahad celinaya iyagana sida iila shaqayn jireen
insha allah biidnillah wax ka wanaagsan baan ku wada shaqayn doonaa iyagana haddii ilaahay ka dhigo tufaax cali dubbad jaamac anigoo ah oo darajo aan ahayn maanta darajo fanka uu igu baxay anuu ina cali dubbad jaamaca insha allah asxaab baan idinla ahaan doonaa weligii kalena hari mayno kolley oo de haddaynu fan intii igu taageeri jirtay mar walba waan ahay tufaax waana la joogaa hadduu ilaahay ka dhigo inuu maskaxda habeenkii waan awoodi jiray 6 xisood inaan xafido fahmadaydu saasay ahayd inta aan abwaanintii waaweyneed iyo fanaaniin iyo muusishanno iyo waabaridii hore iyo qof waliba wuxuu igu garab taagnaa fahmadayda oo habeenna igumay qaadan noloshayda laxan lamaan seexanin halka igu siiyaan baan ku xafidi jiray kuna qaadi jiray marka waxaad igu ducaysaan fahmada aan ku fahmay heesaha inaan iminka qur-aanka aan waqti kaga gaadho heer oo aan barto qur-aanka ilaahayna cabsidan aan dareemayo waqtigu ilaah baa garan qof kastaa dhimanaya laakiin baqdintan iyo cabsidan aan dareemayno in ilaahay iga fududeeyo oo aan ka badbaado kana bogsado insha allah intaa un baan rabay inaan la sheergareeyo waana mahadsantihiin dhammaantiin insha allah ilaahayna hayna soo wada hadeeye hana inoo wada dambi dhaafo maalintuna ha idiin wanaagsanaato dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu